Markii aan suuqa aadno ama dhakhtar, waxaan la kulmi jirnay dad ay hooyaday si fiican isku yaqaaneen, laakiin anigu waxba kama ogeyn cidda ay yihiin. Waxaan la yaabi jiray sida ay hooyaday ku garan jirtay dadka wejiyadooda. Waxaan u malayn jiray inay tahay mucjiso iyada kaliya la siiyay oo ah inay garan karto wejiyada dadka. Waxaa sidaa ku dhahay haweeneyda wax sawirta ee wejigeeda weli baadigoobka ku jirta. Carlota weligeeda ma aysan aqoonsanin weji, ha ahaado weji qof kale ama xitaa midkeeda. Xaaladda ay qabto oo ah xanuun wejiyada dadka shucaaca ka geliya aragtida ayaa saameyn weyn ku yeelatay nolosheeda. Laakiin waxay sidoo kale ka heshay ujeedo ay ku ahaan karto farshaxaniste, taasoo ah inay si mada-awaal ah ku sawirto wejigeeda iyadoo maskaxdeeda adeegsanaysa. Carlota way fadhiisataa si ay u sawirto wax u eg wejigeeda. Qolka ay wax ku sawiraysana waa mugdi, uma baahna wax iftiin ah sababtoo ah maba isticmaasho muraayad ama sawir kale. Waxay hal gacan ku taabanaysaa wejigeeda, gacanta kalena warqad hoostaala ayay ku sawiraysaa iyadoo mada-awaalaysa sida uu u eg yahay. Mar walba waan yaabaa marka aan sawirada aan sameeyay iftiinka maalinkii ku arko, ayay tiri. Guriga ay haweeneydan degan tahay waxaa ka buuxa sawiro ay wejigeeda ka samaysay, waxayna gaarayaan ilaa 1000 sawir sida ay u malaynayso. Mid walba aad buu uga duwan yahay kan kale, xitaa tayadoodu way kala duwan tahay. Carlota waxay xaaladdan dareentay iyadoo gabar yar ah oo markaasi ku sugnayd magaalada Munich 1960kii. Markii ugu horreysay cidna ma aysan garanin arrintan haysata. Iyada lafteeda waxay u maleynaysay in sidaa ay caadi tahay, qof kasta uu sideeda oo kale yahay. Markii aan suuqa aadno ama dhakhtar, waxaa la kulmi jirnay dad ay hooyaday si fiican isku yaqaaneen, laakiin anigu waxba kama ogeyn cidda ay yihiin, ayay tiri. Waxaan la yaabi jiray sida ay hooyaday ku garan jirtay dadka wejiyadooda. Waxaan u malayn jiray inay tahay mucjiso iyada kaliya la siiyay oo ah inay garan karto wejiyada dadka. Inta badan Carlota waxay hooyadeed ku sugi jirtay dukaamada banaankooda, marka dambena waxay raaci jirtay qof aan hooyadeed ahayn, iyadoo garan jirtay oo kaliya inay qof khaldan la socoto marka uu wadada xaafadda galaysay uu hareer maro. Weligeeda uma aysan sheegin hooyadeed waxa ay ku jirto. Waxaan u malayn jiray inaan aniga khaldanahay oo ah inaan si fiican wax diiradda u saarin marka aan wax eegayo ama fiirinayo. Waxay bilowday inay dadka ku aqoonsato dharka ay xiran yihiin, haddii ay ookiyaalo wataan, qaabka ay u socdaan iyo codadkooda. Laakiin markii ay Carlota bilowday iskuulka, ayay ogaatay in waxa haya uu yahay cudur iyada kaligeed ku eg. Waxay runtii igu noqotay arrin aad u adag. Sirtii ahayd in hooyaday kaligeeda ay awood u leedahay garashada wejiga dadka ayaan ogaaday in carruurta kalena ay leeyihiin, ayay tiri. Xitaa marka ay sidaas fahantay kadib, waxba uma aysan sheegin waalidiinteeda. Waxay iska dhaadhicisay in garashada wejiga dadka ay tahay xirfad uu qofku baran karo, maalin maalmaha ka mid ahna ay la qabsan doonto. Iskuulkii waxay kula kulantay dhibaato aad u weyn. Dadka oo dhan ma aysan kala saari karin Carlota. Waxay u ahayd sidii inuu hal ruux yahay oo kale. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa loo diray qolka macallimiinta si ay wax uga soo qaado macallimiinta ka mid ah. Way baxday oo waxay aaday qolkii ay ku jireen macallimiinta. Nin ayaa taagnaa halkaas, waxaana ku yiri, ayay tiri, waxaan raadinayaa macallin Scholtis. Ereygaas waxay ku celisay ilaa 3 jeer ayay ku celcelisay kelimadaas, macallin Scholtis ayaa raadinayaa aaway. Sababtoo ah wuxuu u malaynayay inaan magaca qaldayo. Markii dambena aad buu u carooday, wuxuuna yiri, waa aniga macallinka aad raadinayso. Wuxuu ahaa macallinka fasalkayga maamulayay, laakiin ma aqoonsan karin wejigiisa. Waxay isku dayi jirtay inay macallimiinteeda ku aqoonsato waxyaabaha ay gaarka u leeyihiin sida garka, noocyada kabaha, ookiyaalaha. Waxay sidoo kale ka fahantay sida ay u kala dabeecad kulul yihiin.
Maamulka iskuulka waxay u maleeyeen in Carlota ay dhib dhinaca maskaxda ah ku qabto waxbarashada, waalidkeedana ayayna u direen warqad ay uga sheegayaan inay gabadhooda geystaan iskuulada wax lagu baro ardayda baahiyaha gaarka leh. Laakiin waalidka waxba kama soo qaadin warqadaas, maadaama ay ogaayeen in gabadhoodu aysan waxba qabin. Mar walba waxay Carlota isku dayi jirtay inay iskuulka kadib guriga wax ku akhrisato si ay u fahanto xaaladda dabiiciga ah ee bani'aadamka. Markii ay 22 jir ahayd ayay rumowday riyadeedii ahayd inay dadka ka go'do, goonina meel u degto kaligeeda. Waxay iibsatay doon, waxayna u safartay xeebaha Australia, halkaas oo ay muddo sanad ah ku nooleed. Waqtigaas waxay akhrinaysay buugaag, cuntadeedana waxay ka helaysay kalluun ay soo dabato. Dadka qaba cudurkan prosopagnosia waxay inta badan ku dadaalaan inay bulshada ka dhex baxaan. Markii ay da'deeda gaadhay 40 sano ayay ogaatay inay waxay qabtay uu yahay xanuun magac leh. Ugu horreyn way ku faraxday inay ogaato waxa dhibka ku haya, laakiin haddana way carootay. Waxaan ka xanaaqay sababta qof ka mid ah dadkii aan la soo noolaa iyo kuwii aan la soo kulmayba ay u fahmi waayeen dhibka aan marayay, iyo inuusan jirin qof ii sheegay inaan xanuunsanahay. Xilliga ay arrintan ogaanaysay, Carlota waalidiinteeda oo ahaa kuwo soo korsaday way dhinteen labaduba. Waxaan jeclaan lahaa inaan la wadaago cilmiga iyaga. Waxaan sidoo kale rabi lahaa inay ii sharxaan sababta aan dhibkaasoo dhan ugu soo maray iskuulka, ayay tiri. Way qurux badan tahay. Waxaan dareemayaa sidii inay nolosheeda hadda ii bilaabatay. Waxaan dareemayaa farxad, ayay tiri. Marka ay sidaa dhahaysayna, haweeneydan waxay meel iska dhigtay caradeeda, waxayna samaysatay hab nololeed oo ka duwan sidii hore. Waxay waqti hore iska joojisay shaqada waqtigeeda oo dhan. Haddana waxay ku bixisaa inay si joogto ah wax u sawirto iyadoo raadinaysa wejigeeda. Farshaxankayga muhiim gaar ah ayuu ii leeyahay, ayay tiri. Ma iska joojin karo inaan wax sawiro. Waxaan iska jeclahay inaan mar walba wejigayga sawirto. Ujeedadayda keliya ee aan hadda nolosha ka leeyahay waa sidii aan wejigayga ku heli lahaa. Waxaa intaa ku dhan layaabka ee ay marayso iyo mucjisada haysato Carlota oo ah weli qof wejigeeda baadigoob ugu jirta.